wixii ka dambeeyay markii khawaarijta lagala wareegay in ka badan 50 magaalo oo ka tirsan gobolada dalka waxa khawaarijta soo wajahay walwal xoog leh iyagoo ka cabsi qaba in maleeshiyaadka ay qaldeen ay ka baxaan gacanta horjoogayaasha dhigyacabka ah xogaa ay heshay warbaahinta qaranka ayaa sheegaya in horjoogayaasha khawaarijta ay amarra ku soo rogeen meelaha ay weli haraadiga ku yihiin waxaana amarradaas ka mid ah in la joojiyo isu socodka horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka khawaarijta ah ee deegaanada ay markii hore isaga gudbi jireen amarkan ayaa ka dhaqan galay magaalooyinka Saakow, Kunyabarow, Jilib iyo deegaano kale horjoogaha lagu magacaabo Bukhari oo kooxda u qaabilsan maleeshiyaadka dabagalka oo ay ugu yeeraan kooxda mutaabacada toosna uga amar qaata horjooga Axmed Diiriye ayaa la sheegay in dhammaan horjoogayaashii kale ee maleeshiyaadka uu amarro ku soo rogay qof kasta oo ka baxaya magaalooyinka Saakow iyo Jilib inuu haysto warqadda ogolaashaha oo ay magaalada uga bixi karaan sidoo kale wuxuu amray in labada magaalo aysan qofna soo gali karin taasoo muujinaysa inta ay la eg tahay cabsida soo wajahday khawaarijta ila ka tirsan sirdoonka qaranka ayaa dhanka kale inoo sheegay in cabsida iyo kala shakiga soo kala dhex galay khawaarijta uu sababay in wax ka badan 5 goobood ay u kala xiyirmaan horjoogayaasha khawaarijta ayna awoodi la yihiin in ay meel isugu yimaadaan deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo si weyn uga soo ifbaxay khilaafka khawaarijta oo markii dambe gaaray in ay dhexdooda dagaalamaan ayaa horjoogayaasha ku xayiran oo aan ogaanay waxa ka mid ah horjoogi Xuseen Cali Fiidow horjoogi Cali Ibrahim Geesay Cali Rooti iyo horjoogi Cabdullaahi Jeeri iyo kuwa kale halka Kunyabarow oo ka tirsan Shabeellaha Hoose ayna ku xayiran yihiin khawaarijta Aadan Sunni oo dhawaan u galay khawaarijta gobolkooda sii dhacaya horjoogi Xasan Afgooye iyo horjoogayaal kale ciidanka qaranka iyo geesiyaasha shacabka Soomaaliyeed ayaa khawaarijta markii ay ka saareen guud ahaan degmooyinka gobolada Shabeellada Dhexe iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan waxa ay hadda u gudbeen gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaana ka go'an ciribtirka khawaarijta